munaasabadan dood cilmiyeed ayaa lagu gorfeenayay qaabkii looga hortagi lahaa qabyaaladda oo muddooyinkii ugu dambeysay meel sare ka gaadhay dhammaan meel kastoo ay ku nool yihiin dadka afka Soomaaliya ku hadla waxaana munaasabadani soo qaban qaabiyay dhaqdhaqaaqa la dagaalanka qabyaaladda iyo macadka horumarinta aadamaha oo kaashanaya akaadamiyadda Himilo waxaana munaasabadani ka soo qayb galay ardayda jaamacadaha aqoon-yahano iyo dhalinyarada qaybaheeda kala gedisan waxaana munaasabadaas ugu horeyn ka hadlay Maxamed Cumar iyo Sheekh Cabdirashiid isla markaas si qoto dheer uga hadlay qaabka looga gudbi karo qabyaaladdu kuma koobna dhowr kan arrimood imika aynu ku eegin iyo waaqiciina juduur iyo waxay leedahay qodobo martay jirid aad u dheer ay leedahay runtii oo u baahan in la daweeyo waa dhaqan guriga ka soo bilaabanaya waa dhaqan qofka lagu soo ababiyo oo u baahan gunta laakiin talooyinkeeduna waa sax in qabyaaladda lala diruurin weeyaan ujeedaduna meeshay taalaba lagula diriro cid gaar ma jeedno qof gaar ma jeedno hayb gaar ma beegsanayno ujeedadeenu waxa weeye ereyga qabyaalad sidee nolosha uga baxdaa sinaanta iyo cadaaladda iyo wada jirka iyo isjacaylka iyo wada noolaanshaha iyo hor u ku sidoo yimaada ujeedadeenu waa inta dhinaca kale waxa iyaguna aragtiyo kala gedisan ka bixiyay qaabka looga baxay qabyaaladda iyo siyaabaha keena dhalinyarada iyo ka soo qayb galay munaasabada waxaan oran karaa qabyaaladda waxa sababa oo hormuud u ah odayaasheena iyo siyaasiyiinta waa iminka haddaan meel shaqo kale ka doonto haddaan awoogayo kale markaan ka haysto igu oran lahaa orda aqoontaada iyo kartidaada ku meel marnaba isku maanday inay qabyaaladda sababta ugu weyn ee sababta waa fahan la'aanta diinta ee dadku aan fahansaneyn diinta waayo qofka bini'aadanka haddaanu diinta fahansaneyn wax walba oo diinta liddi ku ah la imanaya ugu dambeyntii waxaa munaasabadaasi soo afmeeray Cabdi Fataax Faysal Xuseen oo ah afhayeenka dhalinyarada la dagaalanka qabyaaladda isla markaasna ka warbixiyay ujeedada munaasabadani daarnayd iyo waliba siyaabaha looga gudbi karo qabyaaladda ujeedada laga lahaa programkan ama barnaamijkan waxay in ummadda laga wacyigeliyo qabyaaladda iyo dhibaatada ay leedahay anigoo ku hadlaya magaca anti-tribalism movement ama dhaqdhaqaaqa la dagaalanka qabyaaladda waxaan halkan mahad ballaaran uga jeedinayaa dhalinyarada Soonya oo noo sahashay inuu barnaamijkan suurta galo iyo macadka horumarka aadamaha oo barnaamijkan ilaa iyo Boorame iyo Burcaan isla wadnay iyo dhammaan dadka ka soo qayb galay hawshan quruxda badan waxaan rajeynayaa inay si anbaqaadaan kulamo caynkan oo kale oo mustaqbalka dhow dhaco munaasabadan dood cilmiyeed ah ee lagu gorfeenayo qaabka looga waana qaadanayo qabyaaladda ayaa imanaysa xilli ay gashay qabyaaladdu meelihii ugu muhiimsanaa ee dhinacyada haykalka dawladnimo oo lagu soo xulo qaab qabiil golaha wasiirada iyo kuwa xildhibaanada mudanayaasha baarlamaanka oo lagu xulo qaab qabiil lamana garan doono qaabka looga waana qaadan doono habka looga gudbayo qabyaaladda Jiib Cabdiweli Cabdixiis telefishinka caalamiga Universal magaalada Hargeysa